أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب إذا كانت محبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا لها نداوني دمانتود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالة نغدي داد مسلمين. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالة نغدي من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع أما برنامج كان عاوة أما ما أنت أنكه الله وحاوكو تعلقا موضوع أدي مهم وإلهي سبحانه وتعالى أكتس وين نبينا عليه الصلاة والسلام وآد ويني شريعتنا أي وينيسي. وموضوع هدي أن كنا قرنا ضمانتنا أنه مسلمين أن نقنضنا بإذن الله عز وجل دتك إلهي سبحانه وتعالى تلمامي الدنيا إني عزي شرف يكون ولانيان، آخرنا جنة إلهي سبحانه وتعالى أي قليان. موضوعنا وحوكو سابسية بإذن الله عز وجل الحب في الله عز وجل. إن ضدك جعلانه وأنو جعلانه أكلي إلهي سبحانه وتعالى درادي أنا نوحك لو جعلي وحلقي أبا قفك إنه هذا قفك أنا جعلاني محانكو جعلاني وحلقو جعلاني وحوي قفك أهل إيمان وي وضدك إلهي رميي مالنت قيام رميي قفك وضدك رميي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحانكو جعلاني وحويان قفك وقف أهل القرآن وحانكو جعلاني قفك وقف أهل صلاة وي وحلقو جعلاني قفك وقف أهل صدقاء قفك وحلقو جعلاني قفك كانوا وقف وناقة كشقية حماتنا ددك وقدقوي iyo wax walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay ama suubana calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa saxiixa uu ku sheegay ee calaamadaha ee dadka ahlu iimaanka, dadka ahlu qiblada, dadka ilaahay rumeeyey, dadka suubana raacay sifaadkoodii ee qur-aanka ama sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay. marka dadka noocaas oo kaleeta in la jeclaado waxa weeyaan aad iyo aad bay u qiimo badan tahay, aad iyo aad bay u wanaag badan tahay, aad iyo aad bay ay u fiican tahay الدنيا إيا آخرة لبضبا. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مركو نبينا عليه الصلاة والسلام كشاكيني وأتيه لها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. مرك آيات داسي إيا آيات فربضنا القرآن قصار ورتيبة. إلهي سبحانه وتعالى أقول له إنما المؤمنون إخوة ذاتك المؤمنين تا ودد ولا ووحا يكون ألوبين diinta iyo allah ay rumeeyeen, subana calayhi salaatu wasalaam ay raaceen. marka dii ay sida ay tahay inay isjeclaadaan, inay ismarxabeeyaan, inay isweyneeyaan waxa weeyaan diinta ayay ka mid tahay. walidaalika xadiid bukhaari iyo muslim ay soo saareen nabigeena calayhi salaatu wasalaam anas ibnu maalik waxa uu ka waranaya uu leeyahay halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaani. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay saddex waxyaalood qofkii laga helo saddexdaa waxyaalood waxa uu ku helayaa sababtooda iimaanka macaankiisa. iimaanka macaan buu leeyahay, dhadhan buu leeyahay, sida raashinka iyo waxa la cuno ama waxa la cabo dadku ay ugu raaxaystaan oo ay u dhadhamiyaan ayaa ilaahay iyo rasuulkiisana waxay noo sheegayaan in iimaanku sidaas oo kaleeto macaan iyo dhadhan uu leeyahay. marka qalbiga uu galo, uu maxalla xididada u galo, dhiigga uu ku dhehmo, qofku ilaahay u jihaysto, subana calayhi salaam uu raaco, marka waxa weeyaan iimaankii ayuu waxa uu helayaa macaankiisii iyo dhadhankiisii ayuu helayaa buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uuna leeyahay. walidaalika subana calayhi salaatu wasalaam iyo khiyaartii iyo saalixiintii iyo saxaabadii iyo dadka ahlu khayrka daa'iman waabadan waxay ahaayeen kuwa iimaanka qalbigooda dhadhankiisa macaanka ka hela. yaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ibni aadamku waxaa la yidhi laba shay buu ka kooban yahay.
wuxuu ka kooban yahay jirka iyo ruux buu ka kooban yahay. jirka waxa weeyaan raashinkiisu waxa weeyaan qofku ama inuu wax cabo ama inuu wax cabo wax cuno. hadduu wax cabi waayo waxna cuni waayo ninka qofka xanuun baa ku yimid, marka cirbad waa la siinaya lagu darayaa ama raashin baa wariidkiisa laga siinayaa. laakiin nafti marka haddii uu intaa waayo oo uu gabi waayo, haddii qofka noloshiisu khatar bay ku sugnaanaysaa. naftuna waxay u baahan tahay iyadoo raashin bay u baahan tahay, laakiin iyado quudkeedu waa ilaahay oo loo hogaansamo, quudkeedu qur-aanka oo la akriyo, quudkeedu alloo lagu xirmaado, quudkeeda salaadoo la badiyo, quudkeeda sadaqado. intaasoo dhan waxa weeyaan qofkii waxay siinaysaa tamar iyo energy awood ayay siinaysaa. ilaah subxaana calayhi salaatu wasalaam la sheegay mararka qaarkood inuu soonku 3 maalmood iyo 4 maalmood uu xiriirin jiray asagoon waxna cunin waxna cabin. marka la weydiiyana uu oran jiray anugu waan seexday habeenkii iyadoo rabbigay uu qiyoodanayo waxana i cabsiinayo. ahlucilm waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa baa la yiri labada waa dhici karaysaa in subxaana calayhi salaam jannada raashin looga keeno. waxaa kaloo dhici karaysa bay yidhahdeen ayna tahayba inta badan inuu nabi calayhi salaam dikriga ilaahay uu badanayo daraaddeeda uu ka maarmayo raashinkaasi dadku ay cunaan. walidaalika nabigeena calayhi salaam xadiidka marka waxau leeyahay 3 waxyaalood qofkii laga helo qalbigiisa iimaanka macaankiisu ka helaya: an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma, aliya rasuulkiisa inay noqdaan wax walba looga jeclaan badan yahay. ka labaad nabi salaam wuxuu yidhi waan yuxiba alcabda aw almara waman axaba cabdan laa yuxibuhu ila lilah, inuu qofku u jeclo addoon muslima oo ilaahay u hogaansamay oo ahlu khayraada uu u jecel yahay oo keliya inuu yahay qof ilaahay subxaanahu watacaala rumeeyey. tan saddexaadna subxaana calayhi salaam waxa uu sheegay qofka inuu kahdo inuu gaalnimo uu ku noqdo markuu ilaahay muslim ka dhigay kadib sida uu u necab yahay in jahanamo iyo naar lagu tuuro. marka taa marka waxaad garanaysaa maxalu shaahidka xadiidka aan ka wadana waxa weeyaan waman axaba cabdan laa yuxibuhu ila lilah, qof addoon ilaahay jeclaaday wax kaleto dan kale male, wax kaleto interestaka male, wax kaloo uu ka rabo male, laakiin waxa uu rabaa oo keliya u jecel yahay ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii buu u jecel yahay. walidaalika jacaylkaa marka muxuu dhalinayaa? wuxuu dhalinayaa sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis muslim uu kusoo saaray uu soo saaray abu hurayra waxa uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayaa uu leeyahay ina allaha tacaala yaquulu yowma alqiyaamati, ilaahay sareeyey maalinta qiyaama wuxuu leeyahy ayna almutaxaabiina bijalaali, aaway kuwii inta adduunyo joogay weynaynta ilaahay isku jeclaaday. ilaahay inay weyneeyeen daraaddeed bay isu jeclaadeen, qur-aankay weyneeyeen, shacairta islaamkay weyneeyeen, wanaagay weyneeyeen, khayrkay weyneeyeen, wuxuu ilaahay reebay ka dheeradeen bay ilaahay ku weyneeyeen, cadamada ilaahay bay subxaana ilaahay bay wax walba ka weyneeyeen. qulubtooda waxaa ku weyneyd ijlaalullahi caza wajal. marka waxaa kulminaya sidaa bay ahayd, dikriga ilaahay bay isugu yimaadaan, ilahay xuskii isugu yimaadaan, ilahay weyneyntii isugu yimaadaan. marka wax kaleeto oo dana business ma wadaagaan, dhaqaalo kale ma wadaagaan, qaraabo kale isuguma imaanin, laakiin hadafkooda iyo kulankooda wuxuu ahaa waxay isu jeclaadeen ilaahay subxaanahu watacaala daraadiisa iyo weyneyntiisa. markaasaa ilaahay waxau leeyahy alyawma udiluhum fii dilli yowma laa dilla ilaa dilli. ilahay wuxuu leeyahy maanta waxaan garanayaa harkayga maalin har uusan jirin ilaahay subxaanahu watacaala harkiisa iyo hooskiisa mooye. marka waxaad garan kartaa walaal, waxaad garan kartaa wanaagga ay leedahay in aniga iyo adiga iyo inta muslimiinta dhammaantoodban aan jeclaano dadka ahlu khayrka, aan jeclaano dadka ilaahay u hogaansamin, aan jeclaano dadka wanaagga ka shaqeeya, aan jeclaano dadka ahlu khayrka. haddii aan sidaa yeelno annagoo wax dana kale aanan ka lahayn, wax kaleto aanan ka filaynin, ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaama harkiisa ayuuna gelinayaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu xaakim uu soo saaray oo sanadkiisana xasan uu yahay. abu hurayra waxa uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka warinaya uu leeyahay nabiga calayhi salaam inuu yihi man sarahu an yajida xalaawata aliimaani falyuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah. qofkay farax gelinayso, qofkii jeclaanaya, qofkii ku farxaya inuu iimaanka macaankiisa qalbigiisa uu ka helo, qofku ha u jeclaado ilaahay subxana watacaala daraadiisa. laa xawla walaa quwata ila billah. maa cadama hada, maxaa ka weynaan badan, maxaa ka qiimo badan? qof baad jeclaatay, ilaahay daraaddii baad u jeclaatay. waxa weeyaan taa marka waxa weeyaan inuu qofku uu ku farxo anuu ahlu khayrkaan jeclahay,
qofku ahlu khayrku waxay ku farxaan inay ahlu khayrku la fadhiistaan, inay ahlu khayrku ay jeclaadaan, inay ahlu khayrku ay la joogaan. ahlu sharkuna de nin walba waxa weye wuxuu jecel yahay ayaa maalinta qiyaama lala kulmin doonaa, sida noo imaan doonta. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari bay muslim ay soo saareen. abu hurayra waatuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayo oo subana abu hurayra uu warinayo oo subana calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy 7 yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh. nabisalam wuxuu yihi 7 ilaahay baa harkiisa gelinaya maalin uu har iyo hoos iyo meel gabaada uusan jirin ilaa ilaahay subxaanahu watacaala carshigiisa hooskiisa mooye, ama ilaahay subxaanahu watacaala harkiisa mooye har kale uusan jirin. maalinta qiyaamo oo ilaahay uu noo sheegay weynaanteeda, dhibaatadeeda, mushkiladeeda, maxaa lahaa argagaxeeda oo ilaahay uu ku magacaabay oo maalinta magacyada faraha badan leh ee qur-aanka kusoo aroortay. weliba waxaa ugu daran dadka adduunka inta la joogo qofku wuxuu ugu jeclay aabiyi hooyadii, waxaa ku xiga islaantiisa, waxaa ku xiga caruurtiisa, walaalihiisa, intaa cid kale la gaarin. kuwii aad adduunya ugu jeclayd ayaa maalinta qiyaamo ugu horeeya waxa kaa cararaya. yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih. maalintaas cid ku istaagaysa, nin walba qof walba wuxuu leeyahy rabbi nafsi nafsi nafsi. marka maalinta aqrabu nnaasi dadkii kuwii kuu jeclaa aad ka carartay ama ay kaa carareen yaad gabaad ka helaysaa. gabaadka ilaahay subxaanahu watacaala unbaa jira. markaasaa nabiga alay salaam wuxuu leeyahy 7 maalinta harka ilaahay uu gelinayo waxaa ka mid a warajulaani taxaabaa fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayhi. 2 qof oo ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisu jeclaatay. 2dan qof macnaa makhrajiqa ahlu ciidadan 2 dumar oo ilahay daraaddii bay isu jeclaan karaan, 2 nin ilahay daraaddii bay isu jeclaan karaan, oo ah qofkuna qofku jeclaanay horaan usoo sheegnay waa qofka ahlu khayrkaa. wuxuu 2daa qof waxay ku kulmeen oo isku jeclaadeen ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa. ahlu qur-aan bay isla akhristaan, salaaday wada dukadaan, sadaqaday wadaagaan, jiiraan bay yihiinoo labaduba waa ahlu khayr. qofka wuxuu u jecel yahay oo keliya qofkan qof ahlu khayra waay, qofka wuxuu u jecel yahay waa qof ahlu khayra. wax interesti kaleetaa ama wax kaleeto oo isku xiriirinayaan ma jirto ilaa ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisa mooye. ilaahay daraaddii bay isu jeclaadeen. markay kala tegayaan xataa maxaa ilaahay daraaddii bay ku kala oo macnaa ay ku kulmayaan ayna ku kala tegayaan, midba qofka qof kale uu jecel yahay. nabigena calayhi salaam waxa uu sheegay inay maalinta qiyaama harka ilaahay subxaanahu watacaala ay gelayaan. subxaana allah. marka maxaa ka qiiman badan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid anas ibni malik oo dabaraani iyo abu yacla ay wariyeen, ahlu cilmigu yirahdeen waa xadiid xasan oo saxiixa. anas ibnu malik oo aada garanaysaan wuxuu ahaa ninkii nabigeena calayhi salaam 10 sano u khidmaynayay, nin aada iyo aada u qiimo badan oo saxaabiyo jaliil oo qiimo badan buu ahaa. wuxuu leeyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maa taxaaba rajulaani fi llaahi. 2 nin ilaahay daraaddiisu ma jeclaadaan, 2 gabdhood ilaahay daraaddiisu ma jeclaadaan ilaa kooda ilaahay loogu jeclaan badan yahay waa kan walaalkiisa aada u jecel. subxaana allah. 2 qof way isjeclaadeen, labaduba waa ahlu khayr. ilahay agtiisa waxaa ugu qiimo badan oo ilahay agtiisa loogu labaduba ilaahay waa uu jecel yahay, haddana waxaa ilaahay agtiisa loogu jeclaan badan yahay qofka walaalkii aada u jecel. subxaana allah. waxa laga yaaba 1% buu dheersaday oo walaalkii aada u jecel yahay. walaalkii markay sinaadeen buu wax yar ku darsaday, kaabaa ilaahay subxaanahu watacaala loogu jeclaan badan yahay. walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo tirmidi uu wariyey, ahlu cilmigu yidhahdeen waa xadiid saxiixa. subana calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibni camr ibn alcaas radia allahu canhuma waxa uu nabigeena calayhi salaam ka warinayay subana calayhi salaatu wasalaam inuu yihi khayru lasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibihi. dadka wadayga oo saaxiibta ah maalinta ilaahay agtiisa maalinta qiyaama waxa ugu qiimo badan qofka maxaa lalahay walaalkii u khayr badan. jiiraanka ilaahay agtiisa ugu qiimo badanna ugu khayr badanna waa jiiraankiisa u khayr badan. subxaana allah. ninkaan walaalka aada jeceshahay oo muslimka oo wanaagga samaynaya waxa weeyaan wanaag badan baad u samaysaan agtiisa ilahay agtiisa adaa maxaa lalahay ugu khayr badan. jiiraan baatiin labadaba jiila ahlu khayr way, laakiin mid baa aad maxaa wanaagga sii badiya inuu ciddaa xiriiriyo oo waxtaro oo garab istaago oo ka warqabo. ilaahay subxaanahu watacaala kaasaa ugu qiimo badan buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam una leeyahy. marka intaaso dhan waxay jiraysaa dadkaa la fiirinayo, dadkaa wax la tarayo, dadkaa la wanaajinayo, dhammaantood waxa weeyaan dad ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii wax loogu tarayo o ilaahay subxaanahu watacaala lagu weyneynayo.
إمام الطبراني waxa weerinaya xadiid sanadkiisu saxiix yahay waxaa laga yaaba qof inuu yiraahdo okay aniga waan jeclahay qofkan dariskayga oo ahlu khayrka waan jeclahay qofkan walaalkay masaajidka wala dukada waan jeclahay qofkan aan iskoolka wada dhigano ahlu khayrka waan jeclahay tuulada iyo xaafada qofka ila degan waan jeclahay dadkan aan aqaano oo magaalada wada degan oo maxaa la isku meel aan degannahay talow qof aadan arag oo aadan jiiraan noqonin isku magaalo aydan joogin isku wadan aydan joogin haddaad jeclaato muxuu qiimihiisa iyo noqonaya nabigana calayhi salaam baa noo sheegay nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam maxaa la dhahaye aan soo sheeg dawaraani uu wariyey sanadkiisana uu saxiix yahay abidarda xadiidku subana calayhi salaam u koryeelayo waxa uu leeyahay wuxuu uri maa min rajulayni taxaabaa fi llahi fi bidahri lgayb ma qof jirto laba qof oo ilaahay daraadii isu jeclaada iyagoo kala maqan islama joogaan ilaa hadday jirto axabahumaa ila allahi ashadahuma xuban lisaaxibihi subxaan allah maxaa lalahay labadaa qof baa laguu sheegay magaalo aan deganayn buu degan yahay wadan kaletuu degan yahay laakiin waxaa laguu sheegay inuu ahlu khayr yahay waxaa laguu sheegay inuu ahlu taqwa yahay waxaa laguu sheegay qof lisaankiisa laga nabadgelay inuu yahay waxaa laguu sheegay qof mustaqiima inuu yahay waxaa laguu sheegay qof ahlu cilmiga khayrkii wanaag ka shaqeeya inuu yahay waxaa laguu sheegay qof sadaqada ku dadaala inuu yahay waxaa laguu sheegay qof maslax doona intaasoo dhan waa qof mumin oo ilaahay u hogaansamay ninkaasi marka waad jeclaatay ilahay daraadii baad u jeclaatay adoon arag maqal mooye aadan dhaayo saarin oon indha aadan saarin marka nabi sala wuxuu leeyay labadooda ka ilaahay loogu jeclaan badahe waa midka maxaa la walaalkii aada u jeclaan badan subxaana allah kii adoo kula joogana ajri xasanaad baad qaadatay isagoo kaa maqana ajri xasanaad iyo wanaagaasi ayaad qaaday walidaalika haddii markay sidaa ay tahay marka waxay keenaysaa qofka kan inaad ziyaarato oo aada booqato maadaama aada jeclaatay maadaama ahlu khayr uu yahay xaq wuxuu kugu leeyahy inaad booqato gurigiisa ugu tagto oo aada soo ziyaarato maadaama ilaahay annagu inta badan qofka qaraabada waa la ziyaartaa qofkaad macrifada tihiin waa la ziyaartaa qofkaad saaxiibada tihiin waa la ziyaartaa qofka axsaan ku galay waa la ziyaartaa qofka aad maxaa lahaye duruuf adduunyo wadaagto oo business waxay doonto ha noqoto waa la ziyaartaa laakiin ma dhici karta qofku inuu qof ilaahay subxaanahu watacaala daraadii uu u ziyaarto uusan danna ka lahayn hadduusan yeelo muxuu helayaa waxa uu helayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam suubano ahaa ayaa noo sheegaya xadiid imaam muslim uu soo saaray abu hurayra radia allahu canhu arda abu hurayra khayr fara badan wanaag fara badan suban calayhi salaam baa u duceeyey markaasa wixii loo sheegaba uu xifdiyey oo u weleeyey waxa kan maanta joogana waxa weeye raggii sunnadan qiimaha badan noo soo gudbiyey wey waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yihi ana rajulan zaara akhan lahu fii qaryatin ukhra nin baa wuxuu damcay nin ay saaxiibe nin ay maxaa lahay walaala yihiin walaalnimada tan qur-aanka inta badan ay sheegayso ama sunnadu ay sheegayso waa walaalnimada diinta ku tacalluqda wey ama walaalnimada caadiga oo aabbahay hooyada ay dhaleen ama nasabka kaa cidna uma baahna in loo sheego laakiin maalin walba ilaahay uu ku ercelinayo oo rasuulku uu ku ercelinayo oo maxaa lalahay oo naloo sheegayo waxa weeyaan waa kan diinta aad ku walaalowdeen oo aydan wax kaleto idin xiriirinaya uusan jirin wuxuu nin walaalkii buu ziyaartay oo xaafad kala degan waxa uu yidhi ilaahay baa subxaanahu watacaala waddadii waxaa loo dhigay malag suura ibni aadan leh nin baa waddada u galay oo meeshii ku sugaya markaasaa markuu yimid bu wuxuu malayka kuusiri waaryaahe intee ku socotaa intee ujeedaa markaasuu yiri war nin aan walaalnaho xaafadda tan degan oo maqsinkan gala ama xaafadda tan degan ama tuulada tan degan ama magaalada degan ninkaa baan ku socdaa markaasuu yiri okay oo ma axsaan buu kuu galay ma horey buu wax kuu geystayo siday soomaali tirado saan ku gud saxan ku gud saan gud macneed waxa weeyaan qofkii saan kuu soo qaado oo lug kuu soo qaado guriga kuu yaha asagana lug baa loogu tagaa saxan ku gud waxay yidhahdeen qofkii saxan kuu keeno raashin iyo bariis hilib kuu jiro asna saxankii saxan baa lagu gudaa waa dhaqanso hadal xuntiisa xunun ma aha markaasuu yidhi war ninku ma waxbuu ku taray ma nin horey axsaan kugu geystayba oo aad u celinayso ixsaankii uu kuu galay oo aad u celinayso aad leedahay waaryahe hadii adigaa shalay buu ninkaa kusoo booqdeedna maanta booqo ma sidaasa oo inta badan ay dhacdo dadku inay sidaa u sameeyaan inta badan dadka waxaa laga yaaba inay war fulaani ayaa nabadii soo booqday anna waa inaan maanta booqdaa dadku inta badan ay yidhahdaan oo ay uga jeedaan keliya in ixsaankii ogole ixsaankana lagu gudo laakiin qof aan xataa weliga kusoo booqanin aad ilaahay daraaddii u booqato qiimaha uu leeyahy balagayso markaasuu leeyahay laa yaa akhi aniga ninkaan wax dana
أما وح مصلحة أما وح إنسان هو رأيه سميه ماله لكن إني أحبه في الله لكن إن كان وإن أهل خير وإن أهل صلاة وإن أهل تقوى وإن هناك الشقية وإن خير بدن ما دام إلهي درادي أن أجعلها سهد هذا ما نبغى يا مويه شاه قوس وشو درادي وقلت لك ما يوم مركزها ملقي إلهي سبحانه وتعالى ما صادره مركزه وحكوري إلى وحنكون شيء يا بنو كويسين يا إلهي سبحانه وتعالى إنه كجعل هذا سيدا أدوارك أو جعلاته سبحان الله ما حكى قيمة بدن إنه إلهي سبحانه وتعالى أنا جعل هذا ما حكى قيمة بدن وأندتك إلهي درادي وجعلانه وأندتك إلهي درادي أن أحررنه وأندتك إلهي درادي أن أبوقنه قفك أهل خير كما وناقا مركا إلهي سبحانه وتعالى ومركا ونجعل هذا الله أكبر ما حكى قيمة بدن ما حكى وناق بدن ووح أن تبين دمان تيضا نبينا عليه الصلاة والسلام مركا واحد قرنيسا صحابة النبينا عليه الصلاة والسلام أرنكا صوبنا عليه السلام وشيغيو ويكون نقمان أو وي ويليين أو وي وناجيين وحين يسكدين إني تطبيقيان أبي إدريس الخولاني نين آذو قيمة بدن وحنفلا إنه تابعها نين أهل العلم آذو قيمة بدن بوها وحيري مقالة وحاني من دمشق مساجد كويا لا يعني مد وحيري بوي وحاركي بوي نين دالين يراه وآت وحيري نين دالين يراه قرحون بعد أركي بوي وإذا الناس معه تذكي إياه اللجوغة نيكا نين عادية معه وحوري فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه ولي وحكا نيكا وحوري عاد إنديس أي وجي وقبريو عاد مركي عاد صوقشو عاد أركيسو وحكا قدرن بوي دادكي با كو هريريسان دادكي با كوخو لجوغا حتى اسخلافان او مسألة دينية يسو قبطان أساقا الله تقا وهلا ويديا وحوري وسدروا عن رأيه وحنتاكا قدرن مركو وحوشيو ويقاتان وحيليهن أهلا هذا الكاغو على العين والرأس مركزان وحا يريبوي ورنينكا نين عادية معاه ورنينكا واكوما وآيو نينكا محوها نينكا كان dadku sida ay yeelayaan waxa la yiri buu hada Mu'adh ibn Jabal ninka waxa loo Mu'adh ibn Jabal Abu Idris al-Khawlani hore mu soo arag laakiin warkiisu qaba oo subhana alayhi salatu wasalaam ninka inuu amaanay saxaabado dhan amaanay ninkan uu amaantiisa ay kamid tahay subhana alayhi salaam ninka ummadayda a'lamu bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal uu yahay wuxuu ogyahay subhana alayhi salatu wasalaam inuu yiri maalinta qiyaamada culimada ninka hogaaminaya معاذ بن جبل ويولي وكسي طلاب أيو كسي هوريا وحو أوي نينك كان أبو إدريس الخولاني إنه نينك كان النبي عليه الصلاة والسلام ويمن أدري أساق إيه علي دادك دينتا أقوي يران دادك دينتا أي بران قاضي أي نقضان ونا قفافيان وكوري السيرة ولا تعسرة دينتا فضية وها عسليسينا بشرة ولا تنفرة دادك أو بشارية خيرك ودادك عيريننا تضاوع ولا تختلف ولبنا وحو اللودينا اسمقلا oo is ixtiraama oo is waryeela hay iskhilaafina hadii kale barnaamijkii iyo waxa u socoteen baa idin ka burburayeen marka ninkan inuu nin aad u qiimo badan oo aad saxaabadii rag ugu qiimaha badan oo walaaga badan inuu kamid yahay warkiisa waa haya laakiin dhaay wali muusan saarin marka ninkan inaan jeclaano waa laga maarmaan marka Abu Idris al-Khawlani warkiiba marka wuxuu ogaaday ninka ka inuu yahay raggii la amray in la jeclaado weeri maalintii labaad baan wuxuu yiri subaxii مسايتان كسو هرمري وان سوك الله يبوري فوجدته قد سبقني وحكا قدرن بوري نينكي وا إيغا سو هرمري نينكي أهل خيرك أسباب مسايتك إيغا هوريا سبحان الله هذيك الجماعة إن أنا وأنا هذكم مسايتك وقدم بي أو محل الله دذلك إيماني والعياذ بالله مركو وحوري وحن لي بولاد دكاني صلاة بكجري حد مركي صلاة أو دميستي وحوري بان أتقي markaasaan ku yiri wajiga xaqiisaan uga imid buuri intuu salaamay baa waxaan ku yiri buuri wallahi inni la uhibbuka lillah intuu ilaahay magiisa ku dhaartay Abu Idris al-Khawlani buu xirniyo ilaahay daraadi baan ku jeclahay markaas uu xiri buuri Allah wuxuu ma ilaahay daraadi baad ii jeceshahay markaas uu yiraahdaa buuri ha markaas uu yiraahdaa war ma ilaahay daraadi baad ii jeceshahay oo dan kale ma lihid markaasaan yiraahdaa buulanigana ahaa 3 jeer wuu ku celceliyay oo uu dhaarinaya kana uu dhaaranayo uu leeyahay ilaahay daraadii baan ku jeclay markaas wuxuu yiri marada iyo soo qabtay way soo hingatay way soo jiiday buu markaas wuxuu yiri abshir haday ka dhabtay
oy kaa xaqiiqad tahay oo warkan uu run yahay wuxuu yidhi bishaarayso maxaa dhacay fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam baan maqlay buu yidhi asagoo dhahaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala sareeyey waxa uu xadiidu alqudsi uu ku yidhi wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi buu yidhi maxabadayda iyo jacaylkayda waxay waajib u noqotay kuwa aniga daraadayda isu jecel walilmutajaalisiina fiya kuwa aniga daraadayda u wada fariista masaajidkay fariisteen gurigay fariisteen mawlacay fariisteen meel bay fariisteen iyagoo ilaahay weyneyne kaale aan ilaahay weyneyne kaale ilaahay aan xusne kaale ilaahay aan sharafne sidaa daraaddeed kuwa yeelay ilahay wuxuu yihi maxabadeeda waajib noqotay walilmutabaadiliina fiya kuwa wuxuu yihi ilaahay wuxuu yihi daraaddeeda wax isu siiya ma aha inay iyagu wax ku siiyaan ood wax siinayso xataa iyagoon wax ku siin baad wax siinaysaa waxaadna leedahay inamaa nudcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura aniga ilahay daraaddied wax kuu siinaya wax dan kaleeto oo aan kaa leeyahay ma jiraan marka ilahay wuxuu yihi waxaad ku bishaaraysta u bishaarinaya ilahay inuu yihi kuwa ilahay daraaddii isu jeclay inuu ilahay jecliya kuwa ilaahay daraaddii u wada fariista u sheekaysta oo ilaahay say u xusaan ilahay daraaddii waa jeceliya kuwa waxsiiya ilaahay daraaddii waxsiisiya isaguna waa jeceliya ilahay wuu jeceliya subxaana allah marka xadiidka imaam maalik baa wariyey iyo ibnu xibaan saxiixiisa waxayna yidhahdaan xadiis toosan saxan weeye subxaana allah marka walaalayaalow marka inaan sidaa yeelno oo ilaahay daraaddii isu jeclaano oon maalinta qiyaamana aan wanaaggaa helno adduunye inta aan joogana cizigii aan sharaf aan ku noolaano waa wax aada iyo aada u qiimo badan oo nafteyda ku boorinayo walaalahana aan ku boorinayo annagoona inaan qalabteena ka raadino dhaqankeena aan ka raadino inaan noqono dad ilaahay daraaddii isu jecel adduunyana cizi iyo sharaf ku noolaada aakhirana wanaag iyo khayr gaara biidn illahi caza hadalkan ama mawduuca kan jacaylka ilaahay daraaddiisa weli waxbaa noo haray insha allah xalqadda amba qeybta labaad ama saddexaad ee soo socota ayaan ku dhammaystiri doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo wajazaakum allahu khayr wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu